taariikhda dilka iyo weliba dambiilayaasha magaca Joseph Metheny wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waalida badan ama ugu dilka badan weliba isagu wuxuu kaga duwan yahay habka dadka uu dili jiray moogtay Joseph Metheny wuxuu sameyn jiray dadka intuu qabto uu soo dilo ayaa wuxuu gogoyn jiray hilibkooda qaybo yaryar dadka wuxuu u qaybin jiray dadka ka iibsanaya hamburgerka sidoo uu qaybin jiray hamburgerka ayuu u gelin jiray hilibka dadkuna saasi ku cuni jireen hilibka cuna ka mid ahaa dadka cuna hilibka bani aadamka isaga laftirkiisu uu cuni jiray hilibka bani aadamka hadda wuxuu saa ku dhacday sheekadiisuna maxay tahay taariikhda Joseph Metheny iyo waxyaabaha uu sameyn jiray iyo dadka uu soo dilayba waxaan ku daawanaa fiidiyoga maanta naanaysaha Joseph Metheny aad ayay u badnaayeen waxaana ka mid ah The Cannibal oo macnaheeda ay noqonayso hilib cunaha hilibka bini aadamka Joe iyo waliba qaar kale lamid ah haddaba Joseph wuxuu aad dib ugu haysay buurnaanta saa'idka waxaana la sheegay inuu buurnaanta saa'idka ka qaaday hilibka bini aadamka ee uu cunayo sidoo kale Joseph waxa la sheegay inuu aad ugu haraadana cabitaanka dhiigga bini aadamka Joseph Metheny wuxuu la walaalahaa 6 caruur ah hooyadiina waxa la oran jiray Jenny Metheny aabihiina wuxuu ahaa nin businessman haddaba reerka Joseph Metheny markii waxay go'aansadeen inay ka guuraan gobolkay deganayeen una soo guuraan gobol kale si ay isugu dheeli tiraan dakhliga soo gala gurigooda sidoo kale si ay u helaan fursado shaqo oo badan haddaba nasiib darro aabihii waxa uu ku dhintay shil gaari hooyadiina waxay sheegtay inay dib badan kala kulantay soo korintooda iyo waliba ilaalintooda yacni cuntasiintooda iyo waliba iskuulgeyntooda iyo u qaybintooda waxyaabaha nolosha aasaasiga haddaba taasi waxay ahayd taariikhdii saxda ahaa ee ninkaasi Joseph Metheny haynu eegno taariikhda dilalka iyo dambiyada uu geystay ninkan Joseph Metheny haddaba dilkii ugu horeeyay ninka Joseph Metheny uu geystay waxay ahayd markii uu soo kaxaystay labadii habloodna wuxuu keensaday gaari gurigiisii uu degi jiray wuxuu ku bilaabay inuu garaaco oo uu midiye ka taago si uu hilibkooda u googooyo dadka ugu qaybiyo waanu sameeyay hilibkii uu googooyay dadkiina wuxuu ugu qaybiyay dadkii ka iibsan jiray hamburgerka dhankii hamburgerka ugu gelin lahaa yacni hilibka khinsiirka ama doofaarka ayaa waxa uu geliyay hilibkii bani aadamka dad badan oo ka iibsadeen dadkuna waxay sheegeen in wax macaan ah waxa la yaab kale ayaa ah inaanu dadka u sheegin inuu hilibkooda wuxuu sifo ahaan wuxuu u siin jiray inuu tahay dadkan tani hilibkii khinsiirka ama doofaarka waxyaabaha uu qirtay ninkan Joseph Metheny ayaa waxa ka mid ah in hilibka uu ku sameyn jiray hamburgerka markay dadku ka iibsadaan ay dadku sheegi jireen in hilibkani aad u macaan yacni hamburger aad u fiican samaysid dadku wuxuu sheegay inay cuni jireen muddo badan iyagoo aan ogeyn inay cunayaan hilib bini aadam sidoo kale wuxuu sheegay inuu sameyn jiray hilib bani sandwich ama hamburger aad u macaan oo dadku in badan la soo xiriiri jireen si kastaba ahaatee waxaa dhammaaday hilibkii labadii gabdhood ee uu dilay waxaanu ninkani ku fikiray meesha uu ka keeni lahaa hilibka qofka labaad ee uu dilayo waxa uu doortay gabadh la oran jiray Rita uu soo kaxeeyay iyadana sidoo kale waxa ka mid ahayd gabdhaha habeenkii oo waa shaqul gaalaad waxan marka gabadhii uu soo kaxeeyay waxaanu keenay meeshii gaadhigii meeshiisii uu dadka ku leen jiray wuxuu bilaabay inuu gabadhii midiye ka taago dharkeediina uu ka jeexjeexo laakiin ilaahay markuu doonayo inuu qofka kashiifo ilbiriqsi uu ku kashiifaya ilbiriqsi uu ninkii madaxiisa u jeediyay uu doonayo inuu doonto midiye uu gabadhan ku jarjaro hilibkeeda ayaa waxay awooday inay ka soo baxdo beeshii uu dadka ku leen jiray waxaana sidoo kale uu lahaa ninkaasi dheer ilaa 10 feet ah 10 feetna waxay awooday inay ka soo baxdo oo ay gaadho saldhigii ugu dhawaa oo ay ka soo ashkataysan ninkii Joseph Metheny wartaas waxay noqotay maalinkii ugu dambeysay ee uu dad dilo oo waa la qabtay waxyaabaha uu qirtay ninka Joseph Metheny ayaa waxa ka mid ahayd in uu dilay 10 hablood markii maxkamadda la keenay 10 hablood ayuu dilay inagu 3 hablood baan soo sheegnay laakiin ninkani wuxuu qirtay inuu dilay 10 hablood wuxuuna u dilay habkii u gaarka ahaa ee uu dadka u dili jiray haddaba ninkan Joseph Metheny markii la ogaaday inuu maskaxan ama nafsad ahaan uu xanuunsanayo waxa laga daayay xukunkii daldalaada ahaa ee lagu xukumi lahaa waxa loogu bedelay xukun xabsi daa'ima oo uu noloshiisa inta ka dhiman ku jirayo
saldhiga ama jeelka. haddaba ninkan waxa uu dhintay 2017 bishii August 5teedii waxaana la helay isagoo ku jira oo meyd ah qolkii uu kaga jiray jeelka. ninkii Joseph Metheny waxa uu dhintay bishii August 5teedii 2017 taasina waxay ahayd dhammaadka hilib cunihii bani aadamka ee Joseph Metheny. waxaynu soo gaarnay dhammaadka fiidiyoga maanta waxaana rajaynayaa fiidiyogan ka heshay waxaan sidoo kale rajaynayaa asxaabtaada la wadaagta channelka sidoo kale waxaan rajaynayaa subscribe saarta channelka gambaleelka aad shidato si aad u socotid fiideo kasta oo soo dhigno markaan soo dhignan u daawatid gunaha noqotid qofka ugu horeeya daawada waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan intay fiidiyo kale isugu kulmano maca salaam